hoteelka weyn ee Cabdi Balaase ee magaalada Buhodle waxaa habeennimadii xalay lagu qabtay kulan loogu magac daray talo wadaag waxaana kulankan looga hadlayay sidii dhaqaale loogu ururin lahaa wadada weyn ee dhexmarta magaalada Buhodle isla markaana looga dhigi lahaa wada laabi ah waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Dr. Cabdishaafi Axmed Cali oo ah gudoomiye ku-xigeenka gudida dhismaha wadada ganacsato cuqaal iyo waliba waxgarad sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay Khadar Faaraxan oo ah madaxa gudida waxa uuna ugu baaqay guud ahaan shacabka ku nool magaalada Buhodle inay ka soo qayb qaataan qaaraanka ururinayo wadadani waxaynu isugu nimi oo ay tahay 8 bishii 10aad 2015 in aynu soo bandhigno mashruuca talo wadaag ee lagu dhisayo laamiga magaalada Buhodle ee jidka weyn mashruucan muddo dheer ayuu soo socday waxa uu fankiisu iyo dhaqaale bixintiisu ay ka timi oo bixisay qaybtii u horeysay sanduuqa la yiraahdo Somali Stability Fund ama SSF waxa ay barnaamijka loogu talagalay in bulshada gobolka ay ka faa'iideystaan oo iyaguna ay bixiyaan qaybtooda talo wadaagna waxa loo yiri waa in taladii la wadaago mashruuca ummadda muhiimka u ah ee iyadu qabsanayso lacagtaas ama fanka SSF ka soo baxay oo soo maray hay'ad la yiraahdo DDG markii uu ina soo gaaray ee ugu horeysay intaan barnaamijka warbixintiisu inoo timi waxa la galay kulamo badan waddankeena hawlo badan buuba wax qabasho badan buuba yahay waa mahadnaqaynaa shirkadda iyo dadka farsamo yaqaanka ee wada iyo haddii ilaahay kuu rumayahay gudida iyo dadka kulli dhammaan u fariidan aad baanu ugu mahadnaqaynaa shirkaddana waxaan ilaah ka codsanaynaa tii lagu faa'iido inay noqoto waxaan weliba kusii baaqi lahayn oo aan odhan lahaa shirkadaha gurigeennu waa guri ammaan waa guri nabadgelyo waa guri baahi badan taal baahi badan baa gurigeenna taal waxaana u sababa ee shirkado horeynaan anagoo haddii alla ku nooyay dowlad baynaan in dhaweyd anagoo baahi badan baa arladeena taal iyo halkaynu ka bilownaa iyo sidee baynu u samaynaa hawlgalka isaga ah ee deegaankeenna iyo magaceenna iyo quruxdeenna iyo magaaladeena intaba sharafta u ah halkii laga qayb qaadi lahaa in laga tashado oo maxay ahayd fartaba hadeerba la isugu fiiqo mooyaane inaysan lahayn walaac kale lahayn gaar ahaan bidicdana soo saaraya marka hore haddii tusaalaha ugu yar aynu eegno marka laga hadlayo laamiga jidka weyn haddaynu yarayno oo magaalada dhinaacna way yar tahay 400 oo meheradood oo eeda labada dhinac kaga soo jeeda oo bixiya min $100 halka waxay noo soo baxaysaa lacag dhan 40 haddii 200 oo gaari oo magaalada ah ay bixiyaan min $100 iyaduna waa $20,000 haddii 200 oo hooyooyinka magaalada degan ah oo min $50 ay bixiyaan iyaguna way waxa ka soo baxaya halkaana $10,000 hadalkii waa la dhameeyay baa filayaa aragtidii iyo waxaa la soo sheegay odayaasha hawshan soo abaabulay iyo hay'ad midda koowaad waxaa weeye magaaladeena waxaa jira sharaa'ig baa jooga shirkadaha telefoonada shirkadaha xawaaladaha ragga halkan jooga waa shaqaale waxaanu ka codsanaynaa mas'uuliyiinta shirkadaha milkiilayaasha inay naga gaarsiiyaan canshuur cidi kama qaateen hawshan magaalada inay kaga qayb qaataan si tabaruc marka waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa ganacsatada iyo dhammaan ummadda ku nool gobolka xafladan qiimaha badan wax allaale iyo wixii karaankayaga iyo tamartayadaana waanu ku taageeraynaa
waxaanu ku qiimaynaynaa si allaale sida ugu wanaagsan ku hadlaya magaca guddiga horta inaan idinka mahadceliyo intii la timid soo dhibtay juhdiga soo gelisay inay timaado taan isugu nimidna waa wadada laamiga horta sidii sheekadeedu u bilaabatay habeen walba waa ku riyoodaa wadadaasoo laamiya oo dhexda dhir kaga taalo oo qolada dhinaca u socotaana xaggaa marayso qolada dhinaca u socotaana xaggaa u marayso ugu dambeyntiina intii uu socday kulankani ayaa waxaa baaq loogu diray shacabka ku nool gobolkani Cayn inay ka soo qayb qaataan dhismaha wadadani wasadaam Cabdullaahi Cabdi TV-ga iyo raadiyaha SBC magaalada Buhodle.